wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa faahfaahiyay ujeedada socdaal muddo qaatay oo uu ku tagay dalka Talyaaniga. wasiir Xuseen oo warbaahinta ugu waramay xafiiskiisa ayaa yiri muddo ilaa 5 casho ah aan joogay wasaaraddu ay ka heshay martiqaad sharaa'ic Talyaaniga investment funds wax la yiraahdo oo magaranaysa danaynaya muxuu ahaayay inay magaranaysa moogtay yani mashaariic ku saabsan korontada ama tamarta ka hirgeliyaan Soomaaliland muddana daraasaynayay runtii oo aan ka wada soconay ilaa muddo sanad iyo badh ay daraasad ku sameeyeen dabaysha dalkeena ka dhacda xawligeeda speedkeeda inay geli karto in magaranaysa tamar yani commercial tijaari geli karta laga dhalin karo inaan laga dhalin karin daraasadaas runtii ay nima khubray muddo dheer ay ka shaqeynayeen oo ay markaa ku qanceen in dalkeena maalinka maanta speedka dabaysha iyo inta jeer ay moogtay yani sanadkii inta marka la isku celceliyo ay dabayl heli karo khaasatan daraasad waxa ka sameeyay magaalada Hargeysa waxay markaa ku qanceen runtii inay muxuu ahaayay ay dal laga dhalin karo korontada dabaysha oo waliba yani si tijaari looga dhalin karo inay tahay waxa uu sheegay shirkado kala duwan oo la kulmay intii uu socdaalkaasi ku guda jiray uu hanweyn yahay in ay dalka yimaadaan isla markaana ay maalgashiyo dhinaca tamarta laga dhaliyo qoraxda iyo dabaysha ay ka fulin doonaan Soomaaliland sharikada hawshan nala qabilisay moogtay arrintan يعني قبل قابسي ومدنا موت دراسات dalka ka sameeynayay arrinta cadaalada maxaa ay dabaysha waxa la yiraahdaa sharikada la yiraahdo Think Global waana man khibrad wala dalka oo fahmay dalka xasiloonadiisa iyo amnigiisa iyo magaranaysa dal wax laga qaban karo inuu yahay oo ku qanciyay markaa moogtay yani dadkii la xidhnaa mashruucii la xidhnaa in dalkan dal really wax laga qaban karo uu yahay oo la invest gareyn karo oo la maal gashan karo sidoo kale wasiir Xuseen ayaa Xuseen safarkiisa natiijada ka dhalatay ee uu kala kulmay dalka Talyaaniga uu yahay kii abid ugu horeeyay isla markaana ay rajo weyn gelisay natiijada ka soo baxday mashruucayga weeye dalayn really hore inaan wax ila qaada la yeelan ama magaranaysa moogtay deesharad la yeelan oo ay magaranaysa muxuu ahaayay way jiraan wasaaradda khaarijiga baxeen oo shir la yeelateen wasaaradda muxuu ahaayay wasaaradda dhigooda laakiin wax ku saabsan horumarin mashaariic horumarineed oo magaranaysa dalka Talyaaniga ugu tagnay waxaan u maleynayaa kii ugu